bismillaahi araxmaani araxiim maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa badaha ugu khatarsan caalamka iyo meelahay ku kala yaalaan. biliis ha ilaabin inaad like noo saartid, sidoo kalena subscribe aad noo saartid si aad ula socotid fiidiyowga la soo geliyo iyo kuwa ugu cusub. waxaa jira bada ku caanbaxay khatarteeda daran. maxaa ka dhigaya badaha qaar mid ka khatar badan badaha kale? waxa ay jawaabtu ku soo aruuraysaa in ay jiraan cawaamisha kala duwan ee laga abuuray ama in ay khatartaasi ka dhalatay waxa ay bani aadamku sameeyaan. badaha ugu khatarsan caalamka waxaa lambar 5 kaga jirta Fukushima. 2011 waxaa ku burburay xeebaha badda Japan xarun nukliyeer oo Fukushima ku taalay, waxaana sababay duufaanadii tsunami. waxaana halkaa ku sumoobay xeebaha badda Japan ilaa wakhtigan aynu joogno. lambar 4 badda Karachai waxay ku taallaa bartamaha Ruushka. waxaa ka buuxda baddan yar suntii iyo tijaabooyinkii nukliyeerka ee ka soo hadhay dagaalkii qaboobaa ee qarnigii tegay. waxa ay isku beddeshay baddaasi dhammaanteed mid sumaysan. haddii uu qofku u dhowaado muddo 1 saac gudaheed bay ku dilaysaa suntaasi. lambar 3 webigii Siita Rome wuxuu ku yaalaa webigan galbeedka magaalada Jakarta ee waddanka Indonesia. wuxuu webigu ka soo bilaabmaa buuraha wuxuuna soo maraa badda Java. laakiin nasiib darro, webiyaasha ugu wasakhda badan caalamka waxaana ka buuxa maadooyin kiimika ah iyo qashinka lagu soo qubo magaalooyinka. kalluumaysatada markay yimaadaan webigan, halkii ay kalluun ka ugaadhsan lahaayeen, waxay ka soo aruursadaan waxyaabaha balaastiiga ah si ay dib ugu iibgeeyaan shirkadaha balaastiiga sameeya ee dib u hagaajiya balaastiiga. lambar 2 Rio Tinto waa webi yar oo ku yaala Spain, wuxuuna isku beddelay midabkiisu casaan midabka dhiigga. waxaana webiga ku jira biro tiro badan oo ku dhex milmay webiga. sidoo kale webigan waxaa ka buuxa bakteeriya, taas oo sababtay in ay beddesho kalarka ama midabka badda oo markii hore ahaa caddaan, haddana noqday midabkiisu mid daxalaystay oo ah casaan. lambar 1 kanaalka Dhadareeg. inta aan la qodin kanaalka Panama, waxaa la mari jiray kanaalka Dhareeg, halkaas oo ay ku kulmaan badaha badweynta ee Atlantic iyo Pacific. waxayna goobtaasi caan ku ahayd cimilada adag iyo dabaylo xoogan oo lagu qiyaaso 10 marka loo eego aaladda lagu qiyaaso dabaylaha ee Beaufort iyo duufaanada aadka u waaweyn. intaasi waxay ahayd badaha ugu khatarsan caalamka iyo meelahay ku kala yaalaan. haddii aad ka heshay fiidiyowga, please like and subscription noo saar. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.